الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحر اليوتيوب جنك مع العسديسي كسر هذا مقال آدي وحساب بدن مقال كان قلبت إن شاء الله تعالى وحان إذن كسو قد بدونا بإذن الله تبارك وتعالى بوقشير أن سمين دون إن شاء الله تعالى إسلام مركزنا أن كسو بوقن دون مالك للدول إن شاء الله تعالى نالا صعدة weli waxaan ku guda jirnaa booqashadeeni aan ku kala bixinayni xaafado kamid ah degmada Daynile ee magaalada caasimada Muqdisho iminka waxaan joognaa haanta dheer ee xaafada Oodweyne ee degmada Daynile waxaan rabnaa insha Allah taala maanta oo khamiis ah ayna tahay xilli galab ah waxaan rabnaa inaan booqasho ku kala bixino meelo kala duwan insha Allah taala hadii alla uu qadaro wadada aan ku socono waxa weeye waa wadadii hormareysay haanta dheer ee xaafada Oodweyne isla markaasna galeysay jayga SS-ta insha Allah mawla waxaan rabnaa insha Allah taala xoogaa yar oo lagu baxsi ah inaan sameeyno maadaama galabta laga nasanayo waxbarashada ay tahay maalin khamiis ah gaar ahaan xilli galab ah maadaama dugsiyada quraanka kariimka ay fasaxno yihiin waxaan jeclaystay inaan muuqaal aan soo duubo kaasoo insha Allah taala noqon doono mid xambaarsan xamaasad gaar ah lagu baxsigu aad iyo aad ayuu u fiican yahay maadaama macallimiin dugsiyada quraanka kariimka shanta maalmood ay dugsiyada dhex fadhiyaan isla markaasna ay u baahan yihiin inay xoogaa lagu baxsi iyo jimicsi ay sameeyaan ay ku haboon tahay saadarteed waxaan jeclaystay inaan xaafadaha soo dhex wareego si markaasi aan u lagu baxsado sida idin muuqato iminka waxaan hormarayaa haanta dheer ee xaafada Oodweyne wadada weyn ee gasho jayga SS-ta ee xaafada Oodweyne ee magaalada caasimada ee Muqdisho insha Allah taala muuqaalka share gareeya like gareeya YouTube channel macal Ciisudeysan subscribe noo saara page-ka macal Ciisudeysan sidoo kale follow soo dhaha aad ba u mahadsantihiin insha Allah taala comment-gan insha Allah taala tala tusaale noogu soo qoro idinkoo aad iyo aad u mahadsan lagu baxsigu ama socodka waxa lagu helaa faa'iido aad iyo aad u fara badan si markaasi dhididka uu kaaga yimaado waxa la sameeyaa socod fara badan socodkaadana waxa wanaagsan inuu ahaado socod xoogaa rucleys oo ku jiro ama xoogaa yar boobsis oo ku jiro si marka oo dhidid uu kaaga yimaado oo jirkaadana qashin saar oo u sameeyo waxaad helaysaa insha Allah taala markaad sidaas sameeyso firfircooni iyo fudeed iyo nashaad ayaad sameynaysaa iminka waxaa noo muuqdo wadada SS-ta ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waxay ku taalaa xaafada Oodweyne ee degmada Daynile wadada SS-ta aad baa loo yaqaanaa waa jay kulay aad loo yaqaano macruuf ah insha Allah taala muuqaalka hal share gareeyo hal like gareeyo YouTube channel macal Ciisudeysan subscribe soo dhaha page-kana sidoo kale follow soo dhaha jazakumullahu khairan comment-gana tala tusaale insha Allah taala noogu reeba aad baa u mahadsantihiin weli waxaan ku guda jirnaa booqashadeena gaabneed aan ku kala bixinaynay qaybo ka tirsan xaafada Oodweyne ee magaalada caasimada Muqdisho hadda waxaa noo muuqdo wadadii SS-ta ee xaafada Oodweyne ee magaalada caasimada Muqdisho ujeedkeena wuxuu yahay inaan booqasho yar aan sameeyno muuqaalkan ujeedkiisa wuxuu yahay si aan ula wadaagno ama ugu soo gudbino daawadayaasheena qiimaha badan muuqaal aad iyo aad u qurux badan insha Allah taala muuqaalka share gareeya la gareeya YouTube channel macal Ciisudeysan subscribe noo saara insha Allah taala wili waa soconaa wili waan lugeynaa insha Allah taala dhidid fara badan ayaa iga socdo taasoo markaas aan u arko inay tahay faa'iido aad iyo aad u fara badan maadaama socod
aan soo sameeyay gurigeyda ayaan ka soo bilaabay socdaalka ilaa iminkana waxaan soo gaaray wadada SS-ta ee xaafadda Oodweyne ee magaalada caasimadda Muqdisho. halkan waxaa idinka muuqdo ilmo aad u da'yar iska ciyaarayo iska baashaalayo qaarkood kubad ay ciyaarayaan ayagana sidoo kale waxaa fasax u ah dugsiyada quraan kariimka iyo iskuuladii maadaama ay tahay galab khamiis ah sida ii muuqato ilmaha way iska ciyaarayaan way iska ciyaar jecel yihiin maadaama ay waxbarashada fasax ka yihiin ilmaha ma jecla aalaaba inay guryaha iska joogaan waxay jecel yihiin mar walba ay jaanis ay helaan inay waqtigooda ka faa'iideystaan iska boodboodaan iska ciyaaraan qaarkood geedaha ayay koraan qaarkood kubad ayay ciyaaraan qaarkood lig dambe sameeyaan qaarkood waxay sameeyaan kuukuun wax la yiraahdo qaar walba dooqooda qof walba oo ilmaha kamid ah wuxuu sameeyaa ciyaar u gaar ah marka way yaryihiin kuwa aad bay u yaryihiin ardada kuwa ka faa'iideysto waqtigooda dhanka waxbarashada maalmaha ay fasax yihiin waxay jecel yihiin inay banaanka u soo baxaan wadooyinka ay yimaadaan ay koox u ciyaaraan ay markaas iska boodboodaan marka iminka waxaan soo gaarnay jayga SS-ta ayaan joognaa waxa idin muuqdo waa digaagad weeye digaagad ayaa idin muuqato kolley digaagadana waxay leedahay faa'iido gaar ah ukumanka ayaan ka helnaa hilib ayaan ka helnaa lacag ayaan ka helnaa waxa weeye digaagada waxay ka mid tahay xayawaanada dabjooga ah oo markaas aan dhaqanno si aan dhinacyo badan ugu faa'iideysano ayaan u xanaanaysanaa guryaha ayaan ku haysanaa ukuma ayay noo dhashaa sidoo kale hilibkeeda ayaan cunaa ayada ayaan iibsanaa iyo faa'iido intaas ka sii badan ayaan ka helnaa digaaga haddii ay tahay marka aad baa mahadsantihiin muuqaalkeena waa sii socon doonaa biidnillaah waan sii socdaali doonaa insha allah weli booqashadeena ayaan ku guda jirnaa insha allah ta'ala nala socdo jazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum weli waxaan ku guda jirnaa booqashadii yareed aan galabta aan samaynaynay from gurigayga ilaa SS-ta ayaa iminka soo dhaafnay waddo kale oo highway ayaan ku soconnaa oo meel markaasi geedageeda ay ku yaalaan sida idiin muuqataba xaafadda aan soo galnay waxaa lagu magacaabaa xaafadda al-ijaaba uu ku yaalo masjidka al-ijaaba waa qayb ka mid ah xaafadda Oodweyne ee degmada Daynile magaalada caasimadda Muqdisho sida maqlaysiin waa shimbiro iyo halkan saaran geedkan weynka idiin muuqdo shimbiro ayaa dul saaran isla markaasna qaylinaayo dhawaaqa dhagihiina soo gaara waa codad ay sameynayaan qaar ka mid ah shimbiraha waxaan sii soconnaa meel aan rabna insha Allah ta'ala inaan muuqaal soo sameyno haddii alla qadaro haddii ay noo suuro gasho waa xaafadda al-ijaaba ee xaafadda Oodweyne waxa idiin muuqdo waa lo weeye waa lo daaqaysa goof ka mid ah goofafka xaafadda Oodweyne ee degmada Daynile ee magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaan ku qabo oo geedaha ay ku yaalaan waad u jeedaan aan filayaa waad aragteen waa lo halkaan markaasi intay dheregtay oo halkaan iska taagtaagan weeye wadada ayay taagan tahay goof halkaan ayay kasoo dheregtay ay kasoo casriyeysatay marka anagana jaanis ayaan u aragnay inaan idin soo gudbino maadaama ay ka mid tahay lo'da waxyaabaha aan ku faano haddaan nahay Soomaali waxay ka mid tahay saddexda nicmooley oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nagu manadaystay sida geela lo'da iyo arigaba insha Allah ta'ala wili waxaan ku guda jirnaa booqashadeeni aan ku sameeynayni qayb ka mid ah xaafadaha degmada Daynile ee magaalada caasimadda ee Muqdisho asxaabtayda qiimaha badan ee ku xiran YouTube-kayga iyo page-kayga iyo TikTok-kayga waxaan idin leeyahay galab wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin xifdiyo hana idin barakeeyo muuqaalka share gareeya like gareeya YouTube channel ma isbeysin subscribe noo saara ma sha Allah xaafadan waa xaafad oo la yiraahdo xaafadda Xergeelka waxayna ka tirsan tahay xaafadaha degmada Daynile ee hoostaga xaafadda Oodweyne
walaalayaal sida idin muuqato waxay iskugu jirtaa bacweynayaal filooyin dabaqyo ay iskugu jirtaa sida idin muuqataba dhismooyin waxaan soo gaarnay oo haaf dabaqyo ah oo aad iyo aad u qurux badan ayaan soo gaarnay